barnaamijka ogaalka dunida. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي ugu horreyn magacaygu waa Taaniya waxaan ka shaqeeyaa shirkadda Cisco halkaan uma imaan inaan shayna ka soo horjeesto dad badan gaar ahaan muslimiinta mar walba waxay dhahaan maadaama aad tahay Catholic waxaad geli doontaa jahannamo anagana waxaan kugu yeeraynaa islaamka si aad u gasho jannada aniga waxaan iska soo qaadaa Catholic diinteeda ku toosan waxaana isku dayaa inta tabarteyda inaan Catholic ahaado dambina uma galo si kas ah taa macnaheedu ma waxay tahay inaan naar gali doono maadaama aan ahay Catholic haddii aan islaamana inaan jannada aadi doono walaashu waxay sheegtay in badan oo kamid ah asxaabteeda muslimiinta ah inay ku yiraahdaan maadaama aad tahay Christian maadaama aad tahay Catholic waxaad gali doontaa jahannamo ma dhabba inay sababtaasi ku gali doonto jahannama walaashayda aniga ra'yigayga haddii aad tahay gabar Kristaan oo raacaysa tacaalimta Masiix Ciise calayhi salaam si kaamil ah insha Allah waxaad gali doontaa jannada laakiin haddii aad dhab ahaan raacayso tacaalimta dhabta ah ee Masiix Ciise calayhi salaam Nabi Ciise calayhi salaam wuxuu yiri xaqa ayaad garanaysaan xaqa ayaana idin xoreynaya sax laakiin aniga hadda ma ogi waxa aad raacsan tahay ma kaniisadda ayaad raacsan tahay mase Masiix Ciise calayhi salaam haddii aad raacsan tahay kaniisadda fursadda aad ku gali doonto jahannamo waa mid aad u weyn balse haddii aad raacsan tahay Masiix Ciise calayhi salaam insha Allah jannada ayaad gali doontaa hadda haddii aad akhriso Bible-ka hadallada qaar ee quseeya Masiix Ciise calayhi salaam ma ogi intay tiro leeg yihiin dhammaan hadalladaasi aqwaashaasi waxay ku qoran yihiin xarfo guduudan waxay ku qoran yihiin qoraallo guduudan walaashay ma waxaad rumaysantahay in Masiix yahay ilaah aniga tashwiish iyo shaki ayaa iga furan arrintaasi waxaan ku weydiinayaa maya ama haa waa ilaah shaki ku jiro maya ma ahan ilaahay shaki ku jiro balse ma doonayo in aan ka jawaabo wax aanan garanayn maya walaashay waxaan ku weydiinayaa wax aad rumaysan tahay maaha waxa aad aqoonta u leedahay aniga waxaan rumaysanahay inuu yahay ilaah hagaag aniga kuma weydiinayo waxaad garanayso maxaa yeelay waxa adkaanaysaa in la sugo walaashay iida aan ku sheegay hal shay islaamku waa diinta kaliya Kirishtaanka kama hadlayno oo ka yeelaya dhammaan dadka aaminsan inay rumeeyaan Masiix Ciise calayhi salaam muslimka islaamkiisu ma dhameystirna haddii uu rumaysana Masiix Ciise calayhi salaam waxaan rumaysanahay inuu yahay mid kamid ah rususha go'aanka adag waxaan rumaysanahay dhalashadiisa mucjisada ah aaba la'aan iyo inuu yahay Masiix oo loo tarjumo Christ waxaan rumaysanahay inuu dadka dhinta ku noolan jiray idanka Alle waxaan rumaysanahay inuu caafin jiray kuwa indhaha iyo kuwa barasku ku dhacay idanka Alle muslimka iyo Kirishtaanku hal meel ay u socdaan ilaa hadda balse midkood ayaa is weydiin kara keel uu kala duwan yahay kala duwanaanshuhu walaashay waa in badana Kirishtaanku hadaysan dhamaantood ba ahayn waxay rumaysan yihiin Ciise calayhi salaam yahay ilaaha weyn waxay rumaysan yihiin inuu ilaahnimo sheegtay dhab ahaantii haddaad akhriso Bible-ka lama helayo eray kaliya oo cad lama helayo hal eray oo kaliya oo wax mugdi ah ku jirin waa Bible-ka oo idil oo Ciise calayhi salaam uu ku leeyahay nafsad ahaantiisa aniga ayaa ah ilaah ee caabuda walaashay haddaad awoodo inaad ii tilmaamto hal jumlo oo kaliya waa hal jumlo oo kaliya oo cad meel kastoo kamid ah Bible-ka oo Ciise calayhi salaam ku leeyahay oo uu nafsad ahaantiisa ku leeyahay waxaan ahay ilaah ee caabuda aniga maanta waxaan diyaar u ahay inaan noqdo Kirishtaan dhab ahaantii haddaad akhriso Bible-ka maya waan u imaanayaa hadalka aniga ayaa jawaabta kuu dhamaystiraya waad dhamaystiri kartaa jawaabta barkeed ayaan ku siiyey waa dhamaystirayaa u kaadi jawaabta barkeed ayaan ku siiyey oo kaliya waxaan kuu sheegay haddaad tahay Kirishtaanad dhaba jannada ayaad gali doontaa waa sax adiga ma garanaysid Kirishtaanatiga saxda ah aniga ayaa macluumaad dhaba kaa sanaya Kirishtaanatiga haddaad akhriso Bible John chapterka 14 faqrada 28 Ciise calayhi salaam wuxuu leeyahay ilaahayga aniga uu iga weyn yahay John chapterka 10 faqrada 29 rabbigaygu dhammaan uu ka weyn yahay Matthew chapterka 12 faqrada 28 anigu ruuxda Alle ayaan shayaadiinta ku saarayaa Gospel of Luke chapterka 11 faqrada 20 faraha Alle ayaan ku saarayaa shayaadiinta Gospel of John chapterka 5 faqrada 30 anigina nafsad ahaanteeda wax sameeyo ma awoodo sida aan maqlo ayaan ka diindhiganayaa diinteeduna waa caadil maxaa yeelay ma dalbayo doonisteeda waxaan dalbayaa doonista Allah ee soo diray qof walba oo dhahaya aniga ma dalbayo doonisteeda balse waxaan dalbayaa doonista Allah ee soo diray waa muslim sidaa darteed Masiix Ciise calayhi salaam wuxuu qira doonista Alle asagu waa muslim waligii isagu ma dhihin ilaah ayaan ahay si cad ayaa loogu sheegay Gospel of John chapterka 14 faqrada 24 Ciise calayhi salaam wuxuu leeyahay
hadalka aad maqlaysaan anigu iskama lihi balse waxa iska leh Allah isoo diray sidoo kale waxa lagu sheegay Book of Acts chapter-ka 2 faqrada 32 ragiina reer Israa'iil dhageysta hadalladan Yasuucu Naasiri waa nin xagga alle idinkaga cadeeyay awoodo cajaa'ib calaamado Ilaahay ayaa gacantiisa ku sameeyay dhaxdiina awoodahaas iyo cajaa'ibtaas iyo calaamadaha waa sida adinkuba aad ogtihiin haddaba masiix waa nin xagga alle idinkaga cadeeyay awoodo cajaa'ib iyo calaamado alle gacantiisa uu ku sameeyay dhaxbartamihiina sidaad adinkuba ogtihiin haddaba Bible-ka ayaan ka ogaanaynaa in Ciise yahay mid kamida rususha loogu galgacayl badan yahay xagga alle annagu waan jecelnahay waan qadarinaynaa tacaalimtiisa miyaan raacsanahay haddii aad barbardhig ku samayso waxa uu ku sheegay Ciise calayhi salaam Bible-ka shalay waxaan sheegay haddaan nahay muslimiin tacaalimta Ciise calayhi salaam wax ka badan Kirishtaanka annaga ayaa raacsan marka laga hadla arinta ku jirta Gospel of Luke maalinta 8aad ayaa Nabi Ciise la daahiriyay annaga haddaan muslimiin nahay dhamaanteen waan isdaahirinaa laakiin badana Kirishtaanku sida ma Masiix Ciise calayhi salaam ku leeyahay Gospel of Matthew chapter-ka 17 ha u malaynina inaan u imid inaan buriyo dhammaan qeyr wadayaasha iyo ambiyada balse waxaan u imid si aan wax u dhameystiro hadalkayga hore sida aan ku sheegaba sifr tathniya chapter-ka 14 faqrada 8 Book of Ashciya chapter-ka 65 faqrada 2 ilaa 5 sifr Laawiyiin chapter-ka 11 faqrada 7 ilaa 8 inuu yahay hilibka doofaarku xaaraan haddaan nahay muslimiin anagu hilibka doofaarka ma cuno laakiin badana Kirishtaanku way cunaan waxa lagu sheegay Ephesians chapter-ka 5 faqrada 18 Booga mahmaayada chapter-ka 20 faqrada 1 ha caabina qamrada muslim haddaan nahay ma cabno laakiin Kirishtaanku way cabaan haddaba haddii macnaha Kirishtaanatigu yahay raacidda tacaalimta Ciise calayhi salaam muslimiinta ayaa ah kuwa ka raacid badan Kirishtaanka nafsad ahaantooda Kirishtaanatiga haddaba haddii aad noqoto gabar Kirishtaan oo dhaba oo aad raacdo Ciise calayhi salaam Ciise calayhi salaam wuxuu ku leeyahay Gospel of John chapter-ka 16 faqrada 7 balse aniga xaqa ayaan idin sheegayaa waxa idin qeyr badan inaan tago maxaa yeelay haddii aanan tagin kiila sharfi idin ma imaanayo balse haddii aan tago waa la idin soo dirayaa sidoo kale Gospel of John chapter-ka 16 faqrada 12 ilaa 14 waxaan idin hayaa arrimo badan si aan idinkugu sheego laakiinse ma awoodaan hadda inaad u dulqaadataan balse markuu midkaasi yimaado waa ruuxdii dhabta ahayd wuxuu idinku hanuunin doonaa dhammaan xaqa maxaa yeelay nafsadiisa kama hadli doono balse waxa uu maqlo ayuu idinkula hadli doonaa wuxuuna idin sheegi doonaa arrimo imaan doona kaasi wuu sharfi doonaa maxaa yeelay wixii aan sheegay ayuu idin sheegi doonaa waa eray aan ka soo qaatay nusqada King James waa Bible-ka haddaba Ciise calayhi salaam wuxuu hore u sheegay imaanshaha nabiga nabiyada ugu dambeeyay Muhammad sallallahu alayhi wasallam haddii aad si dhab u rumaysan tahay Ciise calayhi salaam waxa kugu waajib inaad rumaysan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam haddaba haddii aad tahay Kirishtaanad dhaba oo aad rumaynaysa Nabi Muhammad insha Allah waxaad gali doontaa jannada waxaan rajaynayaa inaan su'aashaada ka jawaabo walaashay waa mahadsantahay